weli waxaan ku guda jirnaa wararka la xiriira cudurka coronavirus. abwaan maxamed cilmi dhicisow oo ka mid ah abwaanada soomaalida ee ku nool dalka Kenya ayaa maanso ka sameeyay cudurka corona ee saameeyay wadamo badan oo caalamka ka mid ah. warbixintan waxaa Nairobi ka soo dirtay wariyaheena Intisaar Saalax. caabuqa coronavirus ayaa waxa uu saameeyay 163 wadan oo caalamka ka mid ah. wuxuu sidoo kale saameyn u geystay dhaqaalihii caalamka iyo safaradii dadka ay isaga kala gooshi jireen wadamada kala duwan. bulshooyinka kala duwan ee dunida ku nool ayaa waxa uu sidoo kale geliyay walwal ballaaran oo ay ka cabsi qabaan in viruskaasi uu saameyn u geysto, maadaama dhaqaatiirta caafimaadka ay sheegeen in si sahlan lagu kala qaadi karo cudurkaasi. xanuunka COVID-19 ayaa waxa uu soo gaaray wadamada bariga Afrika oo ay ka mid yihiin wadamada Kenya, Soomaaliya iyo Itoobiya. haddaba abwaan maxamed cilmi dhicisow waa mid ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya. waxa uu maanse ka sameeyay saameynta caalamka uu ku yeeshay cudurka coronavirus. ugu horeyn waxaan wax ka weydiiyay waxyaabaha ku dhaliyay in uu maansadan sameeyo. mahadsanid Intisaar, waa su'aal muhiim ah. dareen ayaa igu dhaliyay. sida aanu ognahay cudurka coronavirus waa cudur halis ah oo safmar ah ka oo ku sii fidaya dunida oo idil. taa cidna loogama sheekaynayo. dalalkii waaweynaa ayaa wax ka qaban la ilaa iyo iminkan daawo looma hayo. waa musiibo si degdeg ah ayaa lagu kala qaadayaa. waa uu sii fidayaa. dadkii ayuu cabsi geliyay, dhaqaalaha ayuu burburiyay, xuduudihii ayuu kala xirxiray, isku socodkii ayuu gaabis ka dhigay ama uu waxiray. dadkii ayuu karantiilay, kumaan ayaa u nafweysay ama uu galaaftay. arrimaha iyo arrimo la mid ah ayaa dareenkayga kiciyay. kuwa ayaana igu dhaliyay in aan maansa ka sameeyo cudurkan coronavirus. ujeedada tixdan ay xambaarsan tahay maxay tahay? ujeedooyin dhowr ah ayay tixdu xambaarsan tahay. marka koowaad waa wargelin oo waxa ay wargelinaysaa inta aan ka warqabin cudurkan coronavirus in uu jiray in kaleeto. waa mar labaad waa wacyigelin oo bulshadeena Soomaaliyeed ayay wacyigelinaysaa. waa mar saddexaad tixdani waa duraansi, waa duco oo waa la bari. waa mar kale tixdu waa wax sheeg oo waxay inoo sheegaysaa in musiibadani ay tahay mid aynu anagu kasbanay. wattaquu fitnatan laa tusiibanna alladhiina dalamuu minkum khaasa. dhanka kale tixdani dawadi ayay xambaarsan tahay ama ay sheegaysaa oo waa kitaabka Eebe iyo sunnaha Nabiga calayhi salaatu wasalaam. kariim haynaga haye dunida kaarba ka dhacay kaniini wax aan lahayn dadkuna kala qaadayaan kudbaa yimi aan la arag kaafkii kale waxaan lahaa kariim haynaga haye koronaha fayraska kelyaha qaar buu ka galay kurkana qaar buu ka jaray koomana qaar buu ku riday kaafkii kale waxaan lahaa kariim haynaga haye koronaha fayraska kumbuu isbitaala dhigay kumbuu karantiilayo kumbaa keligood ku nool kurbiya nolol karahiya. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.